munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka degmada Xamar Jajab isla markaana ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada laguna soo dhaweynayay gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca siyaasadda mudane Maxamed Axmed Diiri Yabo oo dhawaan xilkaasi loo magacaabay ayaa xal lagu qabtay munaasabadaasi xarunta degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. munaasabada ayaa intii socotay fanaaniinta kooxaha Shamsuddin Band iyo Banaadir Band waxa ay madasha ay ku soo bandhigeen suugaan ka turjumaysa waxqabadka maamulka gobolka Banaadir iyo soo dhaweynta gudoomiye ku-xigeenka cusub ee maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca siyaasadda. gudoomiyaha degmada Xamar Jajab Axmed Cusmaan Dhoore oo ugu hore munaasabada ka hadlay ayaa sheegay bulshada iyo maamulka degmada Xamar Jajab ay soo dhaweynayaan gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca siyaasadda. caawa waa farxad inaan wax gobolka Banaadir hore looga baran inaan caawa degmada Xamar Jajab oo cusub inaan ku qabano barnaamijkaas oo inaan soo dhaweyno maamulka gobolka Banaadir xubinta loo magacaabay dhanka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo dimuqraadiyiinta mudane Maxamed Axmed Diiri Yabo oo ah saaxiib ugu weyn run ahaantii gobolka Banaadir ku weyn asxaabta hadda joogto oo runtii laga yaqaano. gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab oo si wada jira munaasabada hadal kooban ugu jeediyay ayaa maamulka degmada Xamar Jajab ugu mahadceliyay soo qaban qaabida munaasabadaasi. waxaan ku faraxsanahay maanta xafladan aan isugu imaanay heer degmada Xamar Jajab waxa dheena waa maasintii dhammaan waana soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub waxaana qalbi furan iyo gacan furan ku soo dhawaaw inaan shaqeynano diyaar u nahay dhalinyarada 17 degmo mudane gudoomiye si volunteer ku shaqeeyaan dabcan waxaan leeyahay wuxuu kamid ahaa shaqaalaha dawladda hoose ee gobolka Banaadir dabcan wuxuu aaminsan yahay fikradda iyo horumarinta siyaasadda inuu wax badan ka bedeli doono. waxaan leeyahay mudane gudoomiye ku-xigeen waxa lagu idmaday waa mas'uuliyad culus. gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca siyaasadda mudane Maxamed Axmed Diiri oo isna munaasabada ka hadlay ayaa sheegay inuu si gaar ah ula shaqeyn doono xafiiskiisa bulshada ku nool degmooyinka gobolka Banaadir si loo horumariyo adeegyada bulshada. si gooniya waxaan ula shaqeyn doonaa dhalinyarada gobolka Banaadir haweenka gobolka Banaadir iyo dhammaan bulshooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir degan waa si gooniyahan ixtiraamkooda u sii doonaa si gooniyahan ula shaqeyn doonaa ayagana waxaan ka codsanaynaa wax kastoo ay tahay hadday dib u heshiisiin tahay iyo hadday tahay wax kale oo la iskaga baahan yahay intaba inay garabkeena istaagi doonaan. 18 bishan ayay ahayd markii gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca siyaasadda loo magacaabay mudane Maxamed Axmed Diiri Yabo kadib markii Allah u naxariistay marxuum Maxamed Aadan Guuleed Caanageel gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca siyaasadda uu ku geeriyooday qarax ka dhacay hotelka Central ee magaalada Muqdisho. Maxamed Xasan Cali idaacadda telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.